قلب wanaagsan akhyaarta qiibaha iyo qaayaan naga mudan meel walba joogto waa saaxiibkiina caw ka yar Imaaraadka iyo Sacuudiga oo kumanaan calooshoodu shaqaystayaal Afrikaan u soo diraya Soomaaliya telefishinka Press TV laga leeyahay dalka Iran ayaa shaaca ka qaaday qorshaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga waxa uu sheegay in dalalkan ay qorsheynayaan tababarista kumanaan Afrikaan calooshoodu shaqaystayaal si ay xeer uga gaaraan hawshooda military jariirada Al-Qudus Al-Arabiya oo ay faafisay Sacuudiya ay qorshaysay tababarista kumanaan Afrikaan calooshoodu shaqaystayaal kuwa oo dalalkooda lagu tababarayo askarta dalalka qaaradda Afrika ee tababarada ka helay dawladda Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ayaa lagu bilaabaya dalka Soomaaliya waxaana xiga dalka Uganda iyadoo madaxweynaha dalka Chad Idris Deby uu heshiis la galay boqorka Sacuudiga xilli uu booqasho ku tagay magaalada Jeddah oo ku aadana in la tababaro ciidamadooda telefishinka Al-Masriya ee Yemen laga leeyahay ayaa baahiyay in ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha laga howlgelin doono wadamada Soomaaliya iyo Yemen Mohammed bin Zayed Al Nahyan oo dhaxal sugaa Imaaraadka Carabta ayaa ku wajahan dalka Uganda si uu heshiis ula galo Yoweri Museveni oo madaxweynaha dalka iyadoo loo tababari doono in ka badan 10,000 oo askari ila lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in 8,000 oo askari laga howlgelin doono wadamada Soomaaliya iyo Yemen iyadoo ciidamada Soomaaliya loo dirayo xarun u noqon doonto saldhigga military ee Imaaraadku ka dhisatay magaalada Berbera boqolaal qof ayaa ku dhimatay maalin walba dagaalada ka socda dalka Yemen waxaana uu horseeday dagaalkaasi wadamada Sacuudiga iyo Yemen oo taageero siinaya madaxweynaha dibadjooga Rabbi Wahdi Mansour waxaana xogta telefishinka lagu sheegay in sidan oo kale la damacsan yahay Soomaaliya heshiisyadan cusub ee Imaaraadka ayaa kuwa ay wada galeen maamulka Yahuuda si kor loogu qaado xiriirka ka dhaxeeya iyaga iyo dawladda Yahuuda Amir Khalid bin Farhan Al Saudi oo 5 Abriil la hadlay telefishinka Al-Hiwar ayaa sheegay in dhowr shuruud lagu xiray dhaxal sugaa Sacuudiga waxaana lagu amray inuu fuliyo si wada shaqaynta kala dhaxaysa Mareykanka kor loogu qaado shuruudahaasna waxaa ka mid ah in maamulka Riyaad uu xiriir dhow la yeesho taliska Yahuuda ee Tel Aviv kuwa oo ka dambeeya dhaqdhaqaaqyada ay wadaan dalalkani oo sanadadii dambe kor isku soo qaadayay halka nagala socotaan waa Muqdisho TV